ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaaladeenii taxanaha ahaa oo aan maanta kaga hadli doono 10 wadan ee ugu tirada badan ee muslimiinta ah. Haddaba si aan u bilowno muuqaalka ha ilaawin subscribe, like iyo share si ay noogu noqoto dhiirigelin. Mahadsanid. Lambar 10, Morocco. Morocco waa wadan ka mid ah wadamada muslimka ah. Boqolkiiba 99 dadka Morocco waa muslim, halka boqolkiiba 1 kaliya uu yahay dad aan muslim ahayn. Morocco waxaa ku nool ilaa 37 milyan oo muslimiin ah, sidaa darteed Morocco waxaa lagu tiriyaa in ay ka mid tahay wadamada muslimiinta u badan ay ku nool yihiin. Taariikhda Morocco waa mid si qoto dheer ugu xusan Islaamka. Eedaanka salaadaha ayaa laga maqlaa masaajidada meel kasta marka Morocco la dhex joogo. Dadka muslimka ah ee wadankuna waxay raacsan yihiin dariiqada sunniga ee Islaamka. Lambar 9, Algeria. Algeria waa wadan ku yaala waqooyiga Afrika waxaana ku nool in ka badan 43 milyan, dadka intiisa badan waa muslimiin. Dadka muslimka ah ee Algeria waxaa lagu qiyaasaa in ay gaadhaan boqolkiiba 99 tirada guud ee dadweynaha, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah wadamada ugu badan ee muslimka ee caalamka. Wadanku waxa uu leeyahay masaajido badan. Masaajidka weyn ee Algeria waa mid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn caalamka. Lambar 8, Turkiga. Turkiga diinta ugu weyn uguna ballaadhan waa Islaamka. Turkiga waxaa ku nool in lagu qiyaaso 82 milyan oo muslimiin ah oo u dhiganta boqolkiiba 79 tirada guud ee dadka ku nool wadanka. Taariikhda Turkiga waxay daaha ka qaadaysaa in dalka ay ka talinayeen khilaafadii muslimiinta ee Cusmaaniyiinta iyo Cabbaasiyiinta, waxayna khilaafadii Cusmaaniyiintu door muhiim ah ka qaadatay fidinta diinta Islaamka gudaha iyo dibadda Turkiga. Masaajida qurux badan ayaa sidoo kale laga heli karaa magaalooyinka Turkiga sida masaajidka Hagia Sophia oo taariikh faacway ku leh Islaamka. Lambar 7, Iiraan. Iiraan waa wadan ka mid ah wadamada ugu tirada badan ee muslimka ah, laakiin Iiraan way ka duwan tahay wadamada kale waayo Shiicada muslimka ah ayaa halkan u badan. Ku dhawaad boqolkiiba 99 dadka Iiraan waa muslim. Marka la isku darona, Iiraan waxaa ku nool 84 milyan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee adduunka. Iiraaniyiintu waxay ku dhaqmi jireen Zoroastrianism-ka ka hor qabsashadii muslimiinta. Markii Islaamka loo soo bandhigay, Iiraaniyiintu waxay ahaayeen kuwoogii gobta ahaa iyo reer magaalka ahaa kuwii ugu horreeyey ee soo islaamay. Lambar 6, Masar. Masar waa dal ay ku badan yihiin muslimiin. Islaamku waxa uu Masar yimid qarnigii 7 ee taariikhda miilaadiga. Kadibna si degdeg ah ayuu ugu fiday Masar oo dhan. Muslimiinta Masar waxaa lagu qiyaasaa ilaa 96 milyan, taas oo ah boqolkiiba 90 tirada guud ee dadka Masar. Masjidka ugu caansan Masar waa Masjidka Al-Azhar ee magaalada Qaahira, kaasoo ka mid ah jaamacadaha ugu faaca weyn caalamka, isla markaana ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee lagu barto diinta Islaamka. Lambar 5, Nigeria. Nigeria waxaa ku nool dad badan oo muslimiin ah, waxaana ku nool dad muslimiin ah oo gaaraya 105 milyan, iyadoo diinta Islaamka ay tahay diinta ugu badan ee gobollada waqooyi ee Nigeria. Dariiqada sunniga ayaa ah ta ugu weyn ee ay haystaan muslimiinta Nigeria, waxaana ku xiga Suufiyada iyo Shiicada. Diinta Islaamku waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nolol maalmeedka muslimiinta Nigeria. Masaajidada ayaa loo adeegsadaa cibaadada iyo howlaha isdhexgalka bulshada. Lambar 4, Bangladesh. Bangladesh waa wadan ay muslimiintu u badan yihiin oo ku yaala koonfurta Aasiya. Muslimiinta Bangladesh intooda badan waxay raacsan yihiin dariiqada sunniga ah, laakiin waxaa sidoo kale jira Shiicada muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka ku nool. Qiyaasta dadka muslimiinta ah ee ku nool Bangladesh waxay gaaraysaa 161 milyan, taasoo ka dhigan ku dhawaad boqolkiiba 90 tirada guud ee dadka dalka. Dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Bangladesh ayaa kaalin mug leh ka qaatay horumarka iyo kobaca dalka. Lambarka 3, Hindiya.
Hindiya waxay hoy u tahay mid ka mid ah muslimiinta ugu badan ee adduunka. Islaamku waxa uu Hindiya soo galay qarnigii 12aad. Kadibna waxa uu ka mid noqday mid ka mid ah diimaha waaweyn ee Hindiya. Tirada dadka muslimiinta ah ee Hindiya ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 200 oo milyan, taas oo ah ilaa 15% tirada guud ee dadka dalka ku nool. Islaamku wuxuu noqday qayb muhiim ah oo ka mid ah diimaha iyo dhaqamada kala duwan ee Hindiya. Muslimiintu waxay door muhiim ah ka qaateen dhinaca suugaanta, ciyaaraha, horumarinta bulshada iyo waxyaabo kale oo ku saabsan bulshada. Lambarka 2, Bakistan. Bakistan waa mid ka mid ah dalalka ay muslimiintu ugu badan yihiin ee adduunka. Muslimiinta Bakistan waxaa lagu qiyaasaa 205 milyan, taas oo ka dhigaysa ku dhowaad 96% tirada guud ee dadka dalka Bakistan. Islaamku waa diinta ugu badan ee Bakistan. Saamaynta uu ku leeyahay Islaamku Bakistan waxaa laga arki karaa dhinacyo kala duwan oo nolol maalmeedka ah oo ay ku jiraan dharka, cuntada iyo luqadda. Muslimiinta Bakistan ayaa u dabaaldega munaasabadaha kala duwan ee Islaamka sida Ramadaanka, ciidaha iyo qaar kale oo badan. Lambarka 1, Indonesia. Indonesia ayaa leh muslimiinta ugu badan adduunka marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee xarunta cilmi baarista ee loo yaqaano Pew Research Center. Indonesia waxaa ku nool ku dhowaad 229 milyan oo muslimiin ah, taas oo ah ku dhowaad 12% muslimiinta caalamka. Islaamku waxa uu Indonesia soo gaadhay qarnigii 13aad isagoo ku soo galay ganacsato Carab iyo Hindi ah ay keeneen, wixii markaas ka dambeeyeyna waxa ay noqotay diinta ugu badan ee dalka. Maanta, muslimiintu waxay ka yihiin ku dhowaad 87% wadarta guud ee dadka Indonesia, iyadoo dadka soo haray ay ka kooban yihiin Masiixiyiin, Hinduus iyo Buddhisti. Intaa waxaa ku eg muuqaalkii aan ku eegaynay 10 wadan ee ugu muslimiinta badan adduunka. Tan iyo kulan dambe, sidaas iyo nabadgelyo.